adduunka aan maanta ku noolnahay waxaa jira hal erey oo ka dheereeya dhammaan ereyada kale oo dhan. Waa ereyga ay ugu yeedhaan danta. Waxaan ficiladeenna ama aan idhaahdo dadka ficiladooda ku dhaqaaqaan iyagoo ku andacoonaya inay dan ugu jirto. Dantaasi aynu wada afduubanahay waxay noqon kartaa xil, hanti, caanimo, sumcad, dhalalaal adduun, sarqaanimo, aways ama heerkeeda ugu hooseeya marka aynu gaarsiino xabad roodhi ama furan ah oo laga dawariyo dadka liita. Waxaynu odhan karnaa heer kasta oo uu gaarsiisan yahay dadku waa mid ah macbuudka iyo addoonka danta. Waxaa ka mid ah addoommadaasi kuwo badan oo inala sita aqoonsiga islaamnimada. Way soomaan rabadaanta iyaga oo soonkaas ka dhiganaya marmarsiyo ay ugu gabadaan hurdada, haajiska iyo wahsiga, islamarkaana raba inay shaqada ka nastaan iyagoo ku andacoonaya inay suuman yihiin. Danta ay dadku caabudaan ayaa kala weyn, marna kala cadheerisan, mararka qaarna ma dhaafsiisna manfac yar oo markaas helayo. Markii hore diintu waxay ahayd tiirka lagu go'aansado xaqa iyo baadilka. Waxaa jira qayb iyo akhlaaq aan la dhaafi karin, laakiin maanta qayamkaas waxay u jilciyeen kursiga danta. Waxaa dadka badankoodu ay joojiyeen su'aashii ahayd maxaa Alla ii faray, waxayna bilaabeen su'aasha ah maxaa ii fiican, maxaa ii keeni kara faa'iido. Dantu waxa ay noqon kartaa macbuud qarsoon. Qabiilka ayaa lagu taageeraa dadka haddii ay dani kugu jirto. Saaxiibka ayaa lagu fogeeyaa haddii danaad ka dhex aragto. Xagga iyo runta ayaa la tuuraa haddii aysan dani ku jirin. Xitaa xumaanta waxa loo leexiyaa marmarsiyo haddii ay dan gaar ah waddo u noqoto. Dad badan waxay ku qancaan in dantu ay tahay xeerka ugu sarreeya ee nolol lagu maamulo. Saa daraaddeed dantu waxa ay ka kormartay akhlaaqda, waxayna noqotay mid ka sarreysa cibaadada Ilaahay. Qof walba wuxuu ku jiraa tartan iyo dagaal qarsoon oo ah yaa dan fiican helaya. Laakiin hal su'aal oo taagan ayaa ah haddii danta dunida oo keliya laga dhigo macbuudka ugu weyn, maxaa ka dhimanaya ruuxa? Maxaa ka hadhay bulshada marka xiriirka dadka oo dhan lagu saleeyo faa'iido keliya? Waxaa ka mid ah dadka danta caabudo keliya talisyada gaboodfalayaasha ah ee talalkoodii iyo dadkoodiiba u burburiyay si ay kursi ama xil u sii haystaan. Waxaa ka mid ah kuwa isku dilaya qabiilka dartii, oo waxa aabad gocanaysaa in labada tusaale ee dambe ay yihiin kuwo ku dhaboobaya innaga Soomaali ahaan. Waxaan ka wadaa kuwa gaboodfalayaasha iyo digteetarada iyo kuwa qabiilka ah. Waayo waxaan ogeyn sida uu handaraabkii macangiga ah ee Maxamed Siyaad Barre u burburiyay qarankeeni bilnaa ee markii dambena odayadii Soomaaliyeed ay isku burburiyeen dhiigga dhalinteennii xilligaas. Haddaba qoraaga buugga caanka ah ee magaca dhagartii weyneed ugu soo turjumay afnaqaha caanka ah ee aadan saan Dr. Mustafa Maxamuud ayaa isweydiinaya su'aal u dhigan maadaama innagu aynu nahay mu'miniin dhab ah rabbigoodna garanaya xaggee ayaynu kaga jirnaa macbuudayaashaas. Qoraaga isagoo ka jawaabaya isla weydiintaas ayuu leeyahay waxaynu kaga jirnaa salaanka ugu hooseeya maadaama aynu aragno uun barkeen daqiiqadahaas aynu eryanayno. Wuxuu tilmaamaya in fitrada ugu weyn ee bini'aadamku ay tahay dhaabidda kanshada, balse innagu aabay noo siiyey ayaan ah inaynu ku garanno danta ugu weyn ee ay tahay in la caabudo oo la ilaashado ay tahay adeecista eebe. Mar kale daawadaha sharfan aan dhex qaadno muujad kale oo ina xasuusinaysa sida qofka muslimka u noqday mid dhex qaada muujad sidaas ah dhabidda kanshooyinka. Ma u fiirsatay farqiga u dhexeeya saacadaha subaxdii 5 aroornimo iyo 7 aroornimo? waqti ahaan saacadahani waa kuwo isku eeg oo aan ku kala duwanayn wax weyn oo la sheego maadaama ay u dhexeeyaan oo keliya daqiiqado kooban oo 6 ahi. Haddana dareenka ay ku geysiinayso iyo macnaha ay xambaarsan yihiin waa qaar mudan u fiirsasho iyo cibro uun. Bannaanka guriyeenna haddii aad u soo baxdo salaada subax ama aroorta hore waxaad arkaysaa un socodka in yar oo eebbe khayr la doonay uu inoo xarkaa xadhan gudashada waajibka alle ee salaada subax. Waxa uu inoo soo tebinayaa qoraaga dhigana caan ahi jiritaanka waalid ku caya salaada subax si aanu kicinin carruurtiisa ama ugu toosinaya hadal yar oo ah ganaf aan la gaari karin ubta hoose ee qofka, balse hadalkaas waxa uu isku bedelaa dhimbiilo marka ay saacadu tahay 7 aroornimo ee waalidkaasi yaqiinsado in uusan ilmihiisii tegin iskuulka. Canaan jugeyn iyo dharbaaxo ayuu noqdaa xilligaas. bal ka waran waxa qalbiyadeenna ku weynaaday shahaadada aan micnaha buuran lahayn iyo shaqada dhooniga uun la dheefayo. Daawadow waa caabudidda danta uun dhammaanteen waynu awoodnaa inaan danaheena isku tilmaamno si waan ilownay inaan isku sheegno dantii asaliga ahayd ee caabudidda aabe. Si aan u ogaano danta saxda ah waxau nabigeenni maamusnayna leeyahay is-xisaabiya ka hor inta aan laydin xisaabin. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeena aan uga hadlaynay si ay dantu macbuudka u noqotay. waxaan rajaynayaa inaad ka heshay muuqaalka maadaama aad ilaa intan daawanaysay. annaguna waxaan ku leelahay ka tagin calaamadda sheegaysa inaad ka heshay ee like ah. u dir muuqaalka saaxiibada channelka subscribe dhe. waxaynu saaxiibayaal sii wadi doonaa barnaamijyada noocan ah oo aynu soo kordhin doonaa channelkeena. mararka qaarna aan halkan idinku soo bandhigi doonaa buugaaga iyo barnaamijyo markaasi saboorkaasoo kale aan idinku soo gudbin doono kuwaasoo aynu wax badan ka faa'iidi doono insha Allah. idinkuna like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta waa xagiina.